agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay tababar ku saabsan sida looga hortago la iskaga difaaco weerarada dhanka internetka ka dhaca waxaana kulankan ka qayb galay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Farsame Xasan ayaa ugu horreyn ka warbixiyay ahmiyadda tababarkan uu leeyahay hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo sida muhiimka ay u tahay in wax laga barto habka la iskaga difaaco loogana hortago weerarada ka dhaca dhanka internetka. hadaladiisina waxa kamid ahaa horeyn waan idinku runtii idinka mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad noo soo ajiibteen martiqaadkan idinku martiqaadnay inaad nagala qayb qaadataan tababarkan maanta aynu furi doono. runtii wasaaraddu iyadoo ka duuleysa caqabadaadka jira waqti xaadirkan aynu joogno iyo baahiyaha jira iyo duruufaha inagu xeeran iyo maanta sida muxuu ahaay dhacu yahay xagga muxuu ahaay social media ama qaybaha kala duwan ee tiknoolajiyadda aynu aragnay in ka jiro baahi fara badan oo ay jirto dagaal fara badan oo laynagu hayo dhinacyo badan leh inaanu soo ajiibno inaanu soo qaban qaabino oo aanu soo muxuu ahaay barnaamijkan aanu soo diyaarino ka wasaarad ahaan annagoo idiin doonay ciddii khabiirka u ahayd ee ugu khibradda badneed asleenahay khibrad bay u yeelanayaan barnaamijka inay muxuu ahaay inaga jahli saaraan ama ay noo sheegaan meelaha galdaloolooyinkeenu ka jiraan oo ay farta inoogu fiiqaan. aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waqtigiina iyo taymkiinaba mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin soo dhaweynayaa barnaamijkuna wuu inoo furan yahay. agaasimaha waaxda ICT-ga Saxadiid Axmed Cali iyo agaasimaha tiknoolajiyadda dawladda Saleebaan Maxamed Cabdi oo iyaguna si isku mid ah u tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in wax laga fahmo habka looga hortago weerarada ka yimaada dhanka internetka ayaa iyagana hadaladoodii waxa kamid ahaa tababarkan waxyaabaha keenay waxa kamid ah attacks amba weeraro dhanka internetka amba cyber space-ka oo ka dhacay sanadadii u dambeeyay amba ku dhacay laamaha dawladda Soomaaliland wali ilaa xad intaynu haynay marka reportkan hayna laamaha dawladda kala duwan ee Soomaaliland wali attacks ka dhacay marka loo eego attacks ka caadiga ah dhaca in wada garanayno iyo cyber space-ka ka dhaca maaha mid aynu odhan karna xitaa 1% wuxuu saameyn ku yeeshay nolosheena caadiga ah ee daruuriga. guud ahaan tababarkani waxa uu ku saabsanaan doonaa qaabkeeba looga hortagi karaa oo sidaynu wada garanayno waxa la yiraahdaa ka hortagga ayaa ka muhiimsan daweynta. marka tababarkan labada cisho idin socon doona muhiimadiisu waxa weeyaan inaad ogaataan weak portiska aynu leenahay ee laynaga soo geli karo si aad uga hortagtaan in weerarada ka dhanka ah social media accounts-ka aynu leenahay ee aynu ilaashano.